waryaaya dawladda Soomaaliya la shaqeeya sida ay rabto inaad ula shaqaysaanna ku riyooda idiin sheegi mayse maba hurudna xaan riyoonna daybal dantaadu waa daryeelka dawladdaada allow dufunjaa koo muuqda war waa nabad iyo nolol waryaa taageer warkiisa war xawadka ku qorta nabad iyo nolol aryaada nabad iyo nolol qof aan rabin ma jira wax hal qof leeyahay looga dhigaa horta war tanta beeliya ka qoran ma fadoohayno to ilaahay shaygu kooytiya fadoohayna war maanta golii baarlamaanku waa shiray shirkiina waa furmi waayey 120 timidaa la yidhi 140 beledka iska joogaan ayagoon ka xaadirin meeshaas inta isu timid laftirkoodu koox kale maanahay ahaayeenoo adinkoo kalaa mid wuxuu yidhi ra'iisul wasaaruhu xubnaha uu wasiirada ka dhigto xildhibaanada ha ka qaado xilalka wasiirnimada mid kalena wuxuu yidhi maxkamad gaara oo xildhibaanada lagu dacweeyo waa in la sameeyaa guddoomiyihii baarlamaanka oo aad ogtihiin sida loogu kalsoonaana wuxuu yidhi xildhibaanada shacabkii soo doortay aan ku dacweynayna waryaatan oo kala arkay ma dad lagu dacweeyaa soo doortay aa jira dadka lacagaa dooratay war waxaan maqli jiray allahayow nin soo dhoofay oo lacag u soo dhoofay waxba yowsan lacag dhoofine yaa isaga dhoofi aryaadhaha igaarka iyo gabarta ayaantan buuqooru taagnaayo adeerkoor la gubay NGO aaba laga dhigtay war xildhibaanaha inay feel galeen isku soo sawiray arre warkaan iga dhax bacruga jeega dhogoreyda xalay igaarka iyo gabarta iyo xildhibaano tiro badan meel la isugu keenay asaa la yiri lamaanihi qarniga uga waxaan la yaabana gabarta habarteer gacan ku dhiiglaha ku eedaysan toy xiran tahay iyo igaarkan adeerkiis la gubay in la yiraaho lamaanaha qarniga wayga dhaadhici weyday inta farxadu ka soo galay waa calool xumo kale yahay may dheega jiray qayloodii weerto langa qeeranka jiray dheega jiri marka dadka garaabado hay war idinkaan fahmine lamaanaha qarniga waa yihiin waana lamaanihii murugada qarniga wax ma ogidiina sheekadu waa faashiyo war ayaantan muqdisho war farxad la kama maqale maanta war farxad laha idin sida war muqdisho xageed balaayada u aragtay niyo baas abuuriyo war dhageyso warka hayaga dhax gelin hooyo 8 caruur dhashay oo 8 ba agoonnimo ku korisay ayaa jaamacad ka qalin jabisay maanta waa agoon lay aqoon baratay ee baago waa dadaashay war dawladda iyo shirkadaha waaweyn oo dalka ka jira waxa ku waajiba taasoo kale inay lacag siiyaan iyo shaqo oo waxa ay baratay lagu tixgeliyo ummadda ugu shaqayso wuxuu yiri ilaahow bakhshish kama rabay haygu gelin baadi xabad yeysan shaqo siinina la faheeraha la nabad geliyo war hooyadii jaamacadda dhiganaysa meesha lagu dilay waxay ahayd baaruba xaq daraana lagu dilay ayadaba ilmay korsanaysay qalinkii dhiigi ayayna isdhex geliyeen haye xaan hadda idin lahaay war agoon lay ma aynin waxay ahayd gabar 9 jir baska iskuulkana lagu dhac dilay warnamiyow abdiweli gaasa hadali may aray hadalkii maalin dhawayti ana ka hadali oroerka wafar galbeed dibsadeen raali gelinga ka biye wari muga raali gelinti ma ka qaadateen he may ka qaadada waayaan hadalkii usari niman bay dhawaha ka baxeen buurha ka baxeen diinsoor ka baxeen da asweelan man hukumayaan intii usari ya hadana may leeyahay hadalka sida loo qaatay saas ma ahayn marka inoo marna inkira inoo marna hadalka saas ma hayna ara raali gelinga ka biye marna ma ku weelanoona muga abdiweligaas idinku xaad ka tari kartaan haddaad xogxogataan wariya meelo business dhanka ka gadaan hariirka anjaraane wal ganacsi dhanka ku luguurana idinku meesha ma waxaad u tagteen in abdiweligaas xaafadiisa ku xukuntaan war doorashadii koonfur galbeed baa soo dhawo campaign baa laga dhiganayaa sheekadan meeqa kaamaa laga furaha la yiri warnimayaha idinka war ma haysaane maalintii labaad ayuu muqdisho ka socdaa shirka dib u heshiisiinta dadka degan gobolka banaadir waxaana furay wasiirka arrimaha gudaha qarafaan waxa uu yiraahday si magaaladu nabad u hesho gacanta waa in la isgeliyaa war dib u heshiisiin sideedaba haddaad maqashaan waa mashruuc lagu shaqaysto warniyo Soomaali laba maba ka dhamaatay dib u heshiisiin cusub dastuurka qabiya labadaas laga muuy dib u heshiisiin haddaad maqashaan siyaasi dan le iyo oday duub weyn awad wata war baadiyow may baaray wala dadka iska darawba siyaasiyiintu war dib u heshiisiinta dadka isku dirayso war shir dib u heshiisiin haddaad aragtid boor hayad leedahay baa gadaalka ka dhagan warnimayo war ma haysaane guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale wuxuu yiri muqdisho beelo ku dagaalsana ma jiraan
eeyaan lagu marmarsoon dib u heshiisiine dadka ha la maamulo maqaamkeedina ha la soo celiyo ammaankeedana ha la sugo war anugu madaalo waan la qabaa waa yeelkii dhalay ubadku waa warasadiisii wadnaha walaayada u sida waaxyahoo idin muqdishowna waddankoo dhan bay waalidkiis tahay una reer koonfur galbeed hoob unan warkaas qaadaani yaa hirshabeelle maad awal wax ku darsata adigu war galmudug muqdisho lagu heshiisiinaya la dhahayay ma la keenay war shirkii New York la raray war shirka New York waxa ka qayb gashay gabadha ra'iisul wasaaraha ka ah New Zealand mar dhaway umul kala soo baxdo ayadoo canugii xambaarsan bay tagtaa leed kuweennana hadday shaqo yar helaanoo maalmaa ilmahooda waa ergaan ama waa tuuraan ariya ma haddeeraad keentay ra'iisul wasaaraha umula xeeyu umuli waysa iyadoo cunugeera ximbaarsanayba ka qudbaysa qaraamada madoobay war islaantu iyadoo umul hadday meeshii timiday birti madoobeed gacanta ma ku wadatay cunuga yarne malmal gacanta ma ugu xirnaay war islaantu canuga ay wadatay gabar uu ahaa waxaana loo aqoonsaday qofkii ugu daada yaraay ee ka qayb gala shirka golaha guud ee qaramada midoobay war gabadha iyo wiilku waa iscaashaqeen war ma haysaane dulmiyaan adeerkood loo dilo loo gubay war magaaladan muqdisho dadka degan waa heshiis bilaash baa dib u heshiisiin mashruuc looga dhiganaya war haddii ay heshiis yihiin maalin kasta may fiirsan lahaayeen qof dhexdoor ah oo lagu dilaayo war nimanta heshiisa laakiin saaqaas ay gelinin iyo gordaayan war dadka cabsiya dul saaran oo waabsan yihiin cabsida laga dulqaado ayaga waxay ka cabsanayaan baan la kala aqoon sida looga dulqaadaa war dadka damiirka ka dhintay dameeraha ka dhinta naga tag dameeraha naga laynina war muqdisho maxaa ka rabtaan gudoomiye hore balad weynaa yiri lacaga iga maqan xil la dhiibi maaye xaad muqdisho ku soo celisaan maataran waraa dulmi iyo nacnacad meesha isugu keentiin dadka duruufa haysan nololeed war unini daruf bahay beero ma faladaana may war dadka dilka halaga taayay ka beeraha falanaya war horaa loo yiri nin wax dilay hadii aan la dilin oo la dili waayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waayo war dadkuba waa qof la dilay oo dhintay iyo qofkii wax dilay ayaa la dilayaa maanaad dili kartaa muga uu dili waa dadka ma ka wanaagsan قلت فلتر انقاذ